السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسو دوادا سويدلي تي في. inkastoo bini'aadamku ka gaaray horumar baaxad leh sayniska dhinac kasta haddana waxa jira ifafaalooyin uusan awood u yeelanin saynisku inuu sharaxo laakiin waxa jira doonisyo joogto ah iyo daraasado ay ka sameynayaan saynisyahanadu arrimahaas ama ifafaalooyinkaas mustaqbal mowduucan ayaan ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta feejignaanta ama dareenka lixaad waa hibo ay ku raaxaystaan qaar ka mid ah dadka leh diimaha iyo dhaqamada kala duwan taasoo ka dhigaysa inay wax ka ogaadaan dhacdooyinka ku dhacaya isla markaana ay tafaasiil fara badan ka haystaan waxaana jira xaalado hore looga duubay dadka noocan oo kala ah feejignaanta ama saadaalinta mustaqbal waxay gebi ahaanba ka duwan tahay dadka sameeya sixirka iyo cilmiga loo yaqaano astrologiga ilaa hadda lama hayo sharaxaad cilmiyeysan oo ku salaysan ifafaalahan dhawaaq la yaab leh oo ka baxay badweynta Pacific sanadku markuu ahaa 1997 ayaa waxa dhawaaq la yaab leh laga maqlay badweynta Pacific dhawaaqan ayaa waxa cabirkiisu uu gaaray 5,000 oo kiiloomitir sida aaladaha duubista ee maamulka badweynta qaranka ay u suurto gashay inay duubto inkastoo uu dhawaaqani uu la mid yahay dhawaaqyada ay sameeyaan xayawaanaadka ku nool badda gudaheeda haddana ma jirto xayawaan sameyn kara dhawaaqan gaadhaya masaafada intaasi leeg xitaa nabiriga bluega oo loo rumaysan yahay inuu yahay xayawaankan ugu weyn dunida ayaan dhawaaqiisu intaasi gaadhi karin ifafaalaha UFO wuxuu la micno yahay qurbyo sida diyaaradda oo kale u duulaya oo hawada sare lagu arkay waxaana dad marqaati ah oo arkay ay sheegeen in qurbiyadani ay u ekaayeen diyaarado duulaya hase ahaatee ay gabi ahaanba ka duwanaayeen diyaaradaha noocooda waxa sidoo kale ay sheegeen askarta Mareykanka ee jawiga sare in ay arkeen qurbiyada noocan oo kale ah balse ay sharaxaad u waayeen ayna tilmaameen in qurbiyadani aysan ka jirin meeraheena saynisyahanaduna wali waxay isku dayayaan inay xaliyaan hal xiraalahan isla markaana ay gaaraan wax macluumaad ah oo la xiriira xaqiiqda qurbiyadan duulaya khadadka naasga waa qoraallo ilaa hadda laga helay cidlada koonfureed ee dalka Beirut waxaanay u badan tahay inay qoraaladan iska leeyihiin reer naasga ee deganaan jiray aagaas 2,000 oo sanadood ka hor waxa la yaab kale ayaa ah in qoraaladan aanay saameyn ku yeelanin arrimaha cimilada maadaama lagu sawray dhul ballaaran oo lagu qiyaasay 190 mayl oo laba jibaaran arinta la yaab kale ayaa ah in qoraaladani ay yihiin kuwa quman oo ay saynisyahanaduna ku jahwareersan yihiin sida loo dhameystiray naqshadeyntan iyo qoraalkan sida xirfadaysan loo qoray inkastoo aysan jirin farsamooyin xilligaasi lagu ogaanayo qaabka sawiradan kor ay uga muuqanayaan haddana waa ta keentay inay ku darsadaan ifafaalayaasha la yaab kale ee saynisyahanada ka yaabiyay Mary Celtic waa markab la sameeyay 1860 culayskiisuna wuxuu gaarayaa 280 tan markabku wuxuu shiraacday 5tii bishii November ee 1872 safarkuna wuxuu ka bilaabmay magaalada New York laakiin bil kadib markabkii waxa la helay isagoo faaruq ah oo aan wax rakaab ah saarnayn mana jirin wax suuragal ah oo lagu saadaalinayo in markabku uu quuso waxa la yaab kale ayaa ahayd in aysan rakaab la soconin oo markabku kaligii heehaabay saynisyahanaduna may awoodin in ay sharaxaan ifafaalahaas fiidiyowga hadduu ku cajabay like saar botokare bixintana wixii aad fikir qabtan ugu reeb subscribe na saar si muuqaal kasta uu ku soo gaadho